maanta qisadeena waxaan ku soo qaadanaynaa libaaxii iyo saddexdii dibi ee walaalaha ahaa. waxaa jiri jiray saddex dibi oo walaalo ah, mid uu caddaa iyo mid gaduudan iyo mid madow. waxa ay ku noolaayeen meel duur ah, farxad ayay ku wada jireen. wixii cadowgooda ah oo soo weerarana way iska celin jireen, wayna la diriri jireen. kor laakiin waxaa ka ugaarsanayay oo fiirsanayay libaax sharrow ah, jeclaa saddexdan dibi ee burburan in uu mar uun cuno. laakiin waxa uu ogaaday inta ay wada jiraan in aan cidina wax ay ka qaadi karin. dhibaato badan ayuu u maray. wuu fakeray sidii uu saddexdan dibi ku kala geyn lahaa oo dhexdooda khilaaf u dhalin lahaa. maalinkii dambe ayuu qorshe u soo degay. waxa uuna u imaaday saddexdii dibi. waxa uu ku yidhaahday, waxaan ka helay sida aad saaxiibo u tihiin, sida aad walaalaha isku kaalmaysiin, farxadda ku nooshihiin. waxaan jeclaystay in aan saaxiib idinla noqdo, in aan idila jiro si aan farxaddiinoo kale u helo, ammaanna aan duurkan ugu noolaano. saddexdii dibina waa ay soo dhoweeyeen fikirkii libaaxii oo waxay yidhaahdeen, waynu ku faraxsannahay saaxiib adiga oo kale in aan la saaxiibno. maalmo kadib ayuu u yimaaday. waxa uu ku yidhaahday, ma ogtihiin duurkan waxaa ka dhammaanayo biyaha? anigana waxaan ogahay duur halkaas ah oo naga fogeyn in uu biyo fiican laga helayo, muddona aan ku sii noolaan karno. maan aadno. waa ay ka yeeleen saddexdii dibi, waxaana la aaday safarkii lagu aadi lahaa duurkii oo biyo loogu doonan lahaa. intii la sii socday ayaa libaaxii waxa uu la hadlay dibigii madoobaa iyo midkii guduudnaa. waxa uu ku yidhaahday, duurka aan soconno waa bahalo badan yahay, walaalkiinana dhibaato badan ayuu noo keenayaa. dhibaatadaasna asaga ma ahan ee waa qolofkiisa caddaanka ah, kalarkiisa caddaanka ah. dhibaato badan ayaan kala kulmaynaa. mugdigana kuma dhuuman karo, meelaha madowna kuma dhuuman karo, bahallahana wayna soo ugaarsanayaan. si aan farxad u helno, nolol wanaagsan ugu noolaano iyo ammaano, waa in aan asaga iska dilnaa oon iska reebnaa. dood dheer kadibna waxa ay ka oggolaadeen in la dilo dibigii caddaa. sidaas ayuu libaaxii dibigii caddaa ku weeraray, madaxana uu ka jebiyey, dhiiggana uga jaqay. dibigii caddaa oo dhawaaqayo, kaalmana weydiisanayo walaalihiisa in ay ka fujiyaan cadowga, laakiin ayaga meeshii ay taagnaadeen kama aysan soo dhaqaaqin. libaaxiina sidii ayuu waxa uu ku cunay dibigii caddaa, asagoo dhahayo, macaan badanida, meeqa ayaan ku fakerayay in aan mar uun subagaaga cabo, hilibkaagana aan cuno. sidaas ayaa uu waxa ku dhintay dibigii caddaa, waxaana soo haray dibigii gaduudnaa iyo midkii madoobaa iyo libaaxiina maalinkaas si fiican ayuu u dhargay. dibi buuranna sidaas ayuu ku helay. safarkii ayaa la sii waday. haddana waxa uu la hadlay midkii madoobaa. waxa uu yidhaahday, niyahow, annaga shar kama nabadgelayno, sababtoo ah dibigan gaduudan bahallaha way arkayaan, dhiig ayaa ka birbirqayo, waa buuran yahay, dhibaato badan ayuu noo keenayaa. si aad u heshid adigu farxad, nolol wanaagsanna ugu noolaatid, waxaa noo kheyr badan in aan iska reebno dibigan guduudan oon aan dilno. dibigii madoobaana markii loo sheegay inuu asaga nolol ku noolaanayo, noloshaan nolol ka wanaagsanna uu helayo, waxa uu oggolaaday in la dilo dibigii gaduudnaa. sidaas ayuu libaaxiina maalinkii dambe waxa uu ku cunay dibigii gaduudnaa, waxaana isku soo haray dibigii madoobaa iyo libaaxii ayaa isku soo haray. maalmo kadib maalintii la cunay dibigii gaduudnaa, maalmo kadib ayaa libaaxii waxa uu soo hajuumay dibigii madoobaa.
maanta waa maalintaadii ayuu ku yidhaahday. dibigii madoobaana waxa uu yidhaahday, soo igama aadan ballan qaadin in aan nolol wanaagsan ku noolaanayo. laakiin libaaxii ayaa waxa uu yidhaahday, anigu waan baahanahay, baahidayda wixii aan cuno unbaan aqaanaa. dibigii madoobaa markii ogaaday in uusan fakanayn ayuu yidhaahday, iska kay cun, waxaad i cuntay maalintii aad cuntay dibigii caddaa, aad anigana i cuntay. sidaas ayay saddexdii dibi libaaxii uu ku cunay markii uu kala geeyey iskuna diray saddexdoodii dibi. sheekadan waxaynu ka fahmaynaa in wadajirka wax ka wanaagsan ka khayr badan aysan jirin. haddii la kala tagana cadowgana baylah loo noqonayo, sidaa uu rabana inooga yeelayo. wabillaahi towfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waadna ku mahadsan tahay sida qiimaha badan iyo wanaagga badan aad noola socotay.